وعنا ونكسن daawadayaasha qiimiga badan halkan waraadiya iyo TV-ga caalamiga Hami xaruntiisa magaalada Beledweyne kuna soo dhawaada qodobada warkiiga kuwa ugu doorka roon ciidamada danab oo al-shabaab kala wareegay deegaano hor leh madaxweyne qoorqoor oo ku wajahan Caabudwaaq ganacsato Soomaaliyeed oo dilaya dhaawac lagu geystay dalka Koonfur Afrika iyo hogaamiyihii mucaaradka Malawi oo guul ka gaaray doorasho ka dhacday dalkaasi qodobada iyo hadba qodobada inagu soo kordho oo fidsan gordho u diyaar garooba markale isku soo noqod wacan maalinimadu waa xad taariikhdu ku beegan tahay 28 bisha Juun sanadka 2020 kuna soo dhawaada qodobadii warka oo fidsan ayna ku bilownay ciidamada danab oo dagaalamayaasha al-shabaab kala wareegay deegaano hor leh faahfaahin dheeraad ayaa ka soo baxay howlgallo ay ciidamada kumaandooska Soomaaliya ee danab ay saacadihii la soo dhaafay ka sameeyeen gobolka Jubbada Hoose kuwaasi oo dagaalamayaasha al-shabaab looga saaray deegaano dhowr ah deegaanada ay howlgalladaasi ka dhaceen ayaa kala ah Janaay Cabdalle Halishiid Mayoodle Garas Cabe oo dhammaantood hoostaga magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose saraakiisha ciidamada danab ee howlgalkaasi hogaaminaysa ayaa sheegay in deegaanadaasi ay horay u maamulayeen dagaalamayaasha al-shabaab ay hadda ku jiraan gacanta ciidamada dowladda Soomaaliya oo ay ka saareen dagaalamayaasha taliska guutada 16aad ee ciidamada kumaandooska Soomaaliya ee danab gaashaanle Ismaaciil Cabdimaalig Maalin ayaa maalin ka hor sheegay in howlgallo ay ka sameeyeen tuulooyin ka tirsan Jubbada Dhexe oo hoostaga degmada Saakow ay ku dileen sargaal ka tirsanaa dagaalamayaasha al-shabaab kuwooda ugu sarsareeyay kaasi oo u dhashay dalka Nepal ee ku yaala qaaradda Aasiya sargaalkaasi waxaa magaciisa lagu soo koobay Ashraf waxaana lala dilay 3 dagaalame oo ilaalo u ahaa sida uu sheegay sargaalkani u hadlay danab howlgallada ciidamada kumaandooska Soomaaliya ee danab ay ku wadaan gobolada Jubbooyinka ayaa joogto ah maalmihii la soo dhaafay waxaana jira deegaano dhowr ah oo ay kala wareegeen dagaalamayaasha al-shabaab kuwaasi oo badankoodu dhaca gobolada Jubbada Hoose dhinaca kale madaxweyne qoorqoor oo ku wajahan Caabudwaaq madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye qoorqoor iyo wafuud uu hogaaminayo ayaa maanta ku wajahan degmada Caabudwaaq ee waqooyiga gobolka Galgaduud qabanqaabada soo dhaweynta wafuudani ayaa waxa ay ka socotaa degmada Caabudwaaq ee gobolka Galgaduud sawirro iyo boorarkii soo dhaweynta madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye qoorqoor ee laga suray Caabudwaaq ayaa qaarkood la jeexjeexay halka qaarna laga siibay meelihii la suray safarka madaxweyne qoorqoor ayaa imaanaya xilli madaxweynuhu safarkiisa gobolka Mudug u soo weeciyay waqooyiga gobolka Galgaduud oo dhowr jeer tabashooyin badani ay ka soo yareen dhanka kale ganacsato Soomaaliyeed oo dil iyo dhaawac lagu geystay dalka Koonfur Afrika faahfaahin dheeraad ayaa ka soo baxaya ganacsato Soomaaliyeed oo dil iyo dhaawac lagu geystay dalka Koonfur Afrika kadib markii ay saacadihii la soo dhaafay weerar kala kulmeen kooxo burcad oo u dhalatay dalka Koonfur Afrika weerarka koowaad ayaa ka dhacay magaalada Eastlon ee gobolka East Cape ayaana waxaa lagu dilay ganacsade Soomaaliyeed oo lagu magacaabi jiray Daahir Carte waxaana marxuumkaasi goobtiisa shaqo ku weeraray kooxo burcad Koonfur Afrikaan isla dalka Koonfur Afrika waxaa la sheegayaa inuu ka dhacay weerar kale kaasi oo lagu dhaawacay muwaadin kale oo Soomaaliyeed waxa uuna si gaar ah uga dhacay deegaanka hoostaga caasimadda dalkaasi ee Johannesburg waxaana ganacsadahaasi Soomaaliyeed ee lagu dhaawacay weerarkaasi lagu magacaabaa Cumar Axmed Dhiblaawe waxaana goobihii ay weerarkaasi ka geysteen isaga baxsaday kooxihii burcad Koonfur Afrikaanka ahaa waxaana ku guuldareystay howlgallo lagu baxsanayay ay sameeyeen ciidamada booliska dalka Koonfur Afrika maahan markii ugu horeysay oo ay weeraro caankaasi oo kale dhibaato ay kala kulmaan jaalidaha Soomaaliyeed ee ganacsiga u jooga dalka Koonfur Afrika dilal dhac iyo boob hantidoodana loo geysto mararka qaar iyadoo aysan jirin ilaa hadda madaxda ugu sarsareysa dowladda federaalka Soomaaliya in ay war ka soo saaraan dilalkan isdaba joogga ah oo ay kooxaha burcad Koonfur Afrikaanka ula kacaan dadka muwaadiniinta ee ku nool dalkaasi iyadoo sidoo kale aysan jirin madaxda ugu sarsareysa dalka Koonfur Afrika in ay hal iyo laba ka yiraahdaan dilalka maalayacliga ah ee loo geysto muwaadiniinta dalkooda magangelyada ku jooga dhinaca kale hogaamiyihii mucaaradka Malawi oo guul ka gaaray doorasho ka dhacday dalkaasi hogaamiyaha mucaaradka dalkaasi Malawi Lazarus Chakwera ayaa ku guuleystay doorasho ku celis ahayd oo ka dhacday dalkaasi sida ay sheegeen mas'uuliyiinta doorashadan ayuu kaga guuleystay madaxweynaha haya talada dalkaasi
Peter Mutharika iyadoona codadka la tiriyay 58.57 boqolkiiba oo uga hormaray. Sidaasina waxaa ku dhawaaqay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka Malawi. Bishii Febraayo, maxkamadda dastuuriga ee dalka Malawi ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamtay guul uu gaaray madaxweynaha waddankaasi kana gaaray doorasho dhacday bishii May 2019 iyadoo amartay in lagu celiyo doorashadan. Dalka Malawi ayaa noqonaya waddankii labaad oo Afrikaan ah oo doorashadiisa lagu celiyo marka laga soo tago Kenya oo ay sidani oo kale ka dhacday sanadii 2017 deetana uu ku guuleystay madaxweynaha haatan talada haya ee Uhuru Kenyatta. Saaxiibada qiimiga badan guud ahaan waa inaga intaa warkii oo aad ka daawanayseen raadiyo iyo TV-ga caalamiga Hami xaruntiisa magaalada Beledweyne. warsoo jeediyuhu anigoo Jamuni tan iyo warkaan mid laacin ah nooli kulanti. wassalaamu calaykum raxmatullaahi wabarakaatu.